bismillahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijyadeedka subaxnimo ee warbaahinta nation qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya howlgal lagu soo qabtay dhalinyarada loo yaqaano ciyaalweerada oo xalay laga fuliyey qaybo ka mid ah magaalada muqdisho guulaysana inaan qaybo badan oo ka mid ah dhalintaas aan soo qabanno qaybo badanna aan ku raad joogno oo aan rajaynayno waqtiyada soo socda in aan soo qabanno haddii tuurida asal lagu dhiftana waa ku dhib haddii dhagaxa lagu daqrana waa kugu dhib baarlamaanka soomaaliya oo maanta yeelanaya kulan ku saabsan gudagalka jadwalka doorashada guddoonkooda doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka oo maanta ka dhaceysa magaalada kismaayo banaanbax roobdoon ah oo laga dhigay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلهي وحان كبرنا ما أنت اسكو صباحا أو بلارن أو رجال اسكو صباحين أسبابت إنا مطر آهرنو إلهي رحمدي سنو واسعيان سوحرني kumaandooska soomaaliya oo howlgal ballaaran ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose akhbaaraadka dibadda ee soomaalida ka baxsan waxaad ku maqli doontaan dowladda ruushka oo sheegtay inay burburisay warshad huba oo ay lahayd dowladda Ukraine. markale dhegeystayaal ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdan ay ku aadantahay 18-ka bisha afraad ee abriil sanadka 2022 barnaamijyadeedka subaxnimo saaka waxaa soo saaray Cumar Saciid Cabdiraxmaan waxaan idin waramay anigu Cabdi Xaaji iminkana ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan howlgal lagu soo qabtay dhalinyarada loo yaqaano ciyaalweerada ayaa xalay laga fuliyey qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo Xuseen Xaashi Colaad maamulka degmada Dharkeenley iyo saraakiisha ciidanka booliska saldhigga degmadaasi ayaa xalay waxa ay si wada jir ah u sameeyeen howlgal ka dhan ah ciyaalweerada dhibaatada ku haya bulshada deegaanka howlgalka intii uu socday waxaa lagu soo qabtay dhalinyaro aad u fara badan kuwaasi oo ku eedeysan in ay ka mid yihiin ciyaalweerada waxaana qaarkood gacanta lagu soo dhigay iyaga oo gacanta kula jira ka qayb qaadashada falka weerarnimada sida saraakiisha amnigu ay sheegeen gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Dharkeenley iyo taliyaha saldhigga booliska degmadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka uu sii socon doono inta laga ciribtirayo dhalinyaradaasi dhibaatada ku haysa shacabka degmada waxaan ku guulaysana inaan qaybo badan oo ka mid ah dhalintaas aan soo qabanno qaybo badanna aan ku raad joogno oo aan rajaynayno waqtiyada soo socda in aan soo qabanno wayna soconaya oo maaha howlgalka caawa aan ku wada midaysannahay maamulka degmada Dharkeenley qaybihiisa kala duwan ugu horeeyo gudoomiye guhaad iyo qaybihii amniga ee degmada Dharkeenley howlgalkan waa howlgal socon doona waqtiyada soo socda haddii rabbi idmo oo qaybaha kaleento oo dhimanna aan rajaynayno inaan waqtiyada soo socda aan soo wada qabanno gebi ahaanba haddii rabbi idmo wacyigelintiin muddo lagu soo waday wax badan kama tarin waalidiintiina waa garawaayeen in carruurtooda ay ka celiyaan waxyaabahaas aan ku habboonayn amniga guud ee degmada maadaama waalidiinta ay ka jiifteen carruurtii ay siinayeen raashinka markii ay ama quraacdaan ama qadiyaan ama casheeyaan ee noqotay inay u shaqo tagaan dhibaataynta qof kastoo degmadan ku nool ama marin ku ah oo maraya waxaa laga rabaa oo aan kaa codsanaynaa hooyo kasta iyo aabbo kasta ee degmada Dharkeenley ku nool waxayda kala gedisan fadlan carruurtiina haddii tuurida asal lagu dhiftana waa ku dhib haddii dhagaxa lagu daqrana waa kugu dhib haddii qolooyinkan maxaa lahaa ii sheeg marinka jidadka mare ama ayaga ka tirsan gruubada kala ah hubaysan ee dib u geystaanna waa kugu dhib inta ku dhimatay Allah u naxariisto laakiin waxaan rajaynaynaa inaad dareemi doontaan culaysaadka ama caqabadaha ay leedahay in cunugaagii oo aad wax yar gacanta ka qabsan karto hayn karto cesho karto inaad ku weysa asagii oo dhan dhib ciyaalweeradaas ku saabsan inaad ku weysid waxaan ku rajaynayaa inaad ku soo dadaasho 13 jir 15 jir 20 jir ah oo intaas aad ku soo tiri tacbaliis fadlan waxaan ka codsanaynaa sida aad hore uga taxadiri jirtay inaad uga taxadirtid gudoomiyaha degmada Dharkeenley Guhaad Sheekh Xasan Cali ayaa isna fariin u diray waalidiinta ku dhaqan degmada Dharkeenley kuwaasi oo uu ka dalbaday in maamulka ay gacan ku siiyaan soo qabashada iyo ka hortagga dhalinyarada dhibaatada ku haysa bulshada runtii caawa marqaati ka tihiin shaqadii adkeed ee maamulka degmada iyo hay'adaha amniga ay ka qabteen culeysyadii ciyaalka gangiska iyo aan u bixinay qolooyinkan argagixisada ay ku hayeen degmada Dharkeenley
waxaa ilaa mahadiis ah 24 saac ugu dambeysay howlgalladii la sameeyey in lagu soo qabqabtay hogaamiyayaal kooxo magaco kala duwan leh oo runtii muuqaalo aan wanaagsaneyn baraha bulshada ku baahiya sida TikTok-ga iyo Facebook-ga taas oo qalqal ku abuurtay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Dharkeenley runtii maamulkii iyo hay'adihii amniga iskaashanaya awaamiirta madaxda gobolka Banaadir haday noqon lahayd duqa magaalada Muqdisho iyo hay'adaha amniga anagoo fulinayna waxaan bilownay in aan hogaamiyaashaas guryahooda kala soo baxno xarumahooda iskuulada ay wax ku bartaan kala soo baxno si khataraha naftooda ay gaarsiinayaan iyo kuwa ay bulshada kale u geysanayaan looga hortago maamulka iyo hay'adaha amniga waxay diyaar u yihiin shaqadooda inay qabsadaan bulshada wax wanaagsan u gudbi ajra ka helaysa laakiin qalqalka iyo ma haboona in bulshadii aad adiga argagax ku abuurtid waa dogta xaaladda wadanka waxaan leeyahay adigoo maqan ha ka qayb qaadan in bulshadaada argagax geliso adigoo joogana ha ka qayb qaadan howlgalkan ayaa yimid iyadoo habeenadii la soo dhaafay ee bulshada ku dhaqan xaafadaha ka tirsan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ay dhibaato xooggan kala kulmayeen dhalinyarada ciyaal weerada ah kuwaasi oo mararka qaar dadka shacabka ah dilaya qaarkoodna ka qaadanaya agabka ay sitaan aad baad u mahadsantahay Xuseen baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulan ku saabsan gudagalka jadwalka doorashada gudoonkooda sida qorshuhu yahay maanta oo Isniina waxaa la filayaa in xildhibaanada golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay yeeshaan kulan wadajir ah oo ay kaga hadlayaan ajandayaal dhowr ah ajandayaasha kulanka maanta ayaa kala ah 1 ansixinta iyo wax ka beddelka habraaca kumeel gaarka ee u gaarka doorashooyinka gudoonka labada gole iyo madaxweynaha 2 warbixin ku saabsan howlaha u qabsoomay iyo kuwa soo socda oo ay qabanayaan guddiga qabanqaabada golaha shacabka kulanka maanta waxaa si wadajir ah u gudoomin doona gudoonka kumeel gaarka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya shaqooyinka ugu horeeya ee horyaala xildhibaanada labada aqal ayaa waxaa ka mid ah doorashada gudoonka labada aqal iyo tan madaxweynaha Soomaaliya iyo shaqooyin kale oo dhowr ah doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka ayaa maanta ka dhacaysa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Jubbaland waxaa maanta lagu wadaa in lagu qabto doorashada kursi uu horey ugu guuleystay doorashadiisa xildhibaan Maxamuud Maxamed Kuulow balse uu ka geeriyooday 14kii bishii Maarch ee sanadkan kadib markii la sheegay inuu ku soo booday xanuun degdeg ah isagoo ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya kursiga maanta la qabanayo doorashadiisa ayaa ah kursiga Hob 79 kaas oo diigaan doorashadiisu tahay magaalada Kismaayo ee Jubbaland doorashada kursiga Hob 79 waxaa ku tartamaya musharaxiin dhowr ah iyadoo ay socoto qabanqaabada doorashada kursigaas diyaar garowgii ugu dambeeyay oo ay wadaan guddiga maamulka doorashada ee Jubbaland Allaah naxariiste xildhibaan Maxamuud Maxamed Kuulow ayaa ku guuleystay doorashada kursiga Hob 79 taariikhdu markay ahayd 22kii bishii hore ee Febraayo kadib doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah maamulka Jubbaland banaanbax roob doona ayaa laga dhigay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle sida mar kale uu warkan ku ambaqaadayo Xuseen Xaashi Colaad culumowdiinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Jowhar ayaa isugu soo baxay banaanbax roob doon ah kaasi oo lagu qabtay fagaaro ku yaala degmadaasi ardayda dhigata dugsiyada Qur'aanka ayaa sidoo kale dibadda loo soo saaray si alla weyna loo weydiisto raxmadiisa qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha banaanbaxa ayaa halkaasi ka hadlay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waraabiyo dadku way dhibtoodeen magaalada Jowhar guud ahaan waa laga soo baxay dugsiyada Qur'aanka ganacsiga iyo kulli goobii waxbarashada inta badan way soo baxeen waxayna isugu nimidnay ilaahay dartiis ilaahay subxaanahu wa ta'aala cafiyo faqad qaala Allah tabaaraka wa ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا الحمد لله إله ما هذا إله وحن كبرنا ما أنت صباحا oo balaaran oo reer Jowhar isku soo baxeen culimadii dugsiyada Qur'aanka ee ganacsiga dhamaan goobihii muxuu ay shaqada la soo xiray dugsiyada la soo xiray waxaan soo xirnay asbaabta in madar aan helno Ilaahay raxmadiisa noo waasiciyaan soo xirnay meeshan waxaan isugu nimiday